السلام عليكم صاحبي soo dhawaada mar labaad ku soo dhawaada Malafax madal lagu barto kala sarifka lacagaha qalaad iyo macdantaba hab online ah waxa idin soo jeedinaya aniga waa macallin Cabdiraxmaan Dhagax maanta waxaynu soo dhiganay laba cashar oo hore oo basic ah oo aad soo daawateen hadda waxaynu dhiganaynaa casharkii saddexaad ama lesson-keenu saddexaad ee inta aynu soo wadnay taxanaha basic forex maanta waxaynu dhiganaynaa waa maxay forex analysis forex analysis waxaa loo qaybiyaa labo midi waa technical analysis midna waa fundamental analysis waxay noqonaysaa taxliilin ama in wixii taariikh hore dib loo baaro ama wax hore dhacay dib in loo baaro haddaynu ku horeyno technical analysis waa qaab dadka suuqan ka shaqeeya u daraaseeyaan dhaqdhaqaaqa lacagtu samaysay waa fikrad qofku ka haysan karo dhaqdhaqaaqa taariikhiga ah ay samaysay qiimaha lacagtu si uu u go'aamin karo xaaladda ganacsi ee hadda ka jirta qiimaha lacageed ay ku sugan tahay lacagta uu hadda daraaseynaya haddaba dadka ku shaqaysta inay isticmaalaan technical analysis waxaa loogu yeeraa technical traders sida ka muuqata garaafka hortiina yaala suuqii chartigiisii baa idinka muuqda weliba iyadoo uu ka muuqdo muujiyaha candlestick lagu magacaabo suuqu markuu cagaarkaas kor u baxo uu kor aadayo waxaa la dhahaa sell markuu casaanka yahayna markuu cagaarka yahayna waxaa la dhahaa buy marka inaan daraaseeyo lacagtii qiimayaashii ay soo martay korkii ay lacagtaasi aaday iyo hoostii ay aaday daqiiqadihii ugu dambeeyay saacadihii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay wiigii ugu dambeeyay hadba time frame-kan adeegsanayo time frame-kan insha Allah waan dhigan doonaa time frame-ka aan adeegsanayo ayay ku xidhan tahay inaan daraaseeyo aan hab technical ama analysis ama taxliilin aan ku sameynayo suuqa ayaa la dhahaa technical analysis in suuqii aad soo ogaatid waxyaalihii ugu dambeeyay uu sameeyay sida fallaadha idinka muuqata inuu ugu dambeeyay salbu soo aaday oo waa la iibsaday lacagta markii dambana kor bay aaday inaan ogaado lacaguhu daqiiqadii saacadii maalmihii wiigii bishii sanadkii xataa qarnigiiba xataa ogaan karta inaad ogaatid lacagtan qiimaha ku sugnayd marka technical analysis waxaa la dhahaa lacagta inaad ku ogaatid markan soo koobo lacagta inaad ku ogaatid dhaqdhaqaaqadii ugu dambeysay ay samaysay hab technical ama taxliilin ah inaad ku ogaatid baa la dhahaa technical analysis oo waxay ka mid tahay waxyaalaha suuqan aad kaga shaqaysanaysid oo waxaad samaynaysaa dadkani suuqan waxay kaga shaqaystaan inagoo kala dadkan traderska suuqa waxay kaga shaqaystaan inay qiimayaashii ugu dambeeyay waxyaalihii ugu dambeeyay lacagtan ay samaysay ay ku trade gareeyaan saynu casharadii hore kusoo dhiganay haabintii ugu dambeysay lacaguhu soo sameeyeen ay marna kor marna hoos aadayeen saynu ku sheegnay qiimaha lacagtu meel lama istaagtay hadda wata graafkaas ay ka muuqataa in marna hoos aadayso marna kor aadayso marka haabkaasa laga faa'iideystay haabkana waxaa haabkan casoo haabas marba kor marna hoos aadayso ayaa waxa lagu in la taxliiliyo aad ogaatid meel ugu sareysay ay gaadhay meesha ugu sareysay ogaatid uu qofku kaga faa'iideysan karaa marka waxyaalaha suuqan laga faa'iideysto farsamo ahaan waa inaad farsamo ahaan u baratid garaafka inaad baratid inuu meel ugu sareeyo gaadhay meelaha laga geli karo meelaha intriga dhammaan inaad soo baratid sidoo kale waxaa jira mawduuca labaad ee qofku markuu forex galayo ama uu ka shaqaysanayo loo baahan yahay inuu isna uu soo baaro fundamental analysis waa qaab loogu eegayo suuqa forex xaaladda uu ku sugan yahay dalka siyaasad ahaan ilaa lacagtan dal baa leh dhaqaalahaan iyo weliba xoogaha ka soo baxay lacagta taasoo kaa caawinaysa inaadan ku degdegin lacagta sanadkeeda haddii xog sax aad ka haystid fundamental analysis waa in aad og tahay lacagtan aad maanta gelaysid ama aad berrito gelaysid dalkaas warba ka soo saaraya
dhaqaalihiisu Mareykanka oo kale berri ma dhihi karaa lacagteeda siyaasad ahaan maanta waa sidee xaaladda corona dalkaas ay ku tahay adigu arrimo siyaasadeed arrimo dhaqaale ah wax un dalka ama lacagtaas qiimaheedu hoos ma u dhacaya kor ma aadaya waa inaad ka warhaysid haddii aadan ka warhayn runtii dhibaato kuu keenaysaa oo waa inaad garanaysid lacagta Mareykanka in maanta ay hoos u dhici karto in berri hoos u dhici karto waa inaad newsada la socoto newsada waxaa jira hadda website ka caawinaya inaad la socon kartid lacag walba marka warka ka soo baxaya maalin walba waxaa lagu maalin walba lacagta warka ka soo baxaya daqiiqad walba iyo bish soo socota war ka soo bixi doona lacag walba website ka soo daaya waxaa lagu magacaabaa Forex Factory oo aad ka heli kartaa annaga ahaan Forex ma adeegsano fundamental analysis waayo waxaan ku tiraargaynaa elite waveska iyagu waxay ku socdaan graphics fiican oo de iyagu fundamental ku inkastoo mararka qaar aad la soconaysid haddana iyaguna way ku caawinayaan laakiin maal ahaan ma isticmaalno laakiin fundamental analysis waxyaalo badan isaguna ka caawinaya oo inaad dalka inuu good economy yahay sida graafka ka muuqato waxay currency value ama qiimaheedu aad u fiican yahay inay low currency value tahay oo bad economy tahay dalkaas u dhaqaaleyso marka waxaan marka hore isku sarifnay waxay ahayd lacagaha la kala sarifayo labada lacagood kala sarifayso waa in midna qiimaheedu hooseeya midna qiimaheedu sareeya saasaynu ku faa'iidi karnay marka dalkaas waa in aad kala ogtahay good economy oo high currency value lacagtu value fiican leedahay ama qiimo fiican leedahay iyo inuu low currency value leedahay labadaaba qofku waa inuu ka soo ogaadaa oo isagoo ka soo baaraya website-ka weyn ee Forex Factory inahaasan maanta kusoo gabagabaynayaa waan salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi